ظروفها kala duwan ee adkeynaya nolosha qofka Soomaaliga isbedelka cimilada daaradka abaaraha adduun weynaha oo aynu wax ka soo iibsano boqolkiiba 70 Soomaaliya inay wax dhoofisay ahayd tii wax soo iibsan lahayd ma markaad eegto percentage-ka Soomaaliya iyo Horn of Africa iyo Afrikada guudba waxyaabaha markaysay dibadda ka imanaya iyo kuwa gudaha ka jira colaado ka mid tahay ee dadka wax soo saarkoodii saameynaya waynu ka daragsanahay laakiin maqaadiirta u weyn ee dadka Soomaaliyeed ku habsatay soddobkii sano u dambeysay waxay ahayd dawlad la'aan iyo dawladii oo iyaduba aan tamar badan lahayn hay'adihii dawliga ah ee Soomaaliyeed haday noqoto xaq qorshayn haday noqoto xaq kalluumaysi haday noqoto xaq xanaanada xoolaha iyo wasaaradda arrimaha bulshada oo barnaamijka baxnaano ee hadda aad garanaysaan ka shaqeysa aan ballo ku lahaa berigii hore waxa muuqata isbedelka la taaban karo ee ku yimi adeega tamar intay doonto hal leekaatee ay hay'adihii dawliga ahaa heer federaal iyo heer maamul goboleed u fidinayaan dadkooda Soomaaliyeed waa guul u soo hoyatay dadkii Soomaaliyeed ee gurmadka iyo garabka u baahnaa horta isku soo wada xooriyo daraaladan barnaamijyahan faraha badan ee maalin walba mid la furaya ay ku soo dhamaanayaan waxa weeye in qofkii uu helo meel uu wax ka soo saaro oo noloshiisa ku kaafiyo ama job creation ha loo bixiyo ama resilience ha loo bixiyo ama economic growth ha loo bixiyo waxa loo digiyo dam leeyahay qofka Soomaaliga ha isku filnaado qoyska Soomaaliga ha isku filnaado cashiimada ama deegaanka Soomaaliga ha isku filnaadaan qaranka iyo dadka Soomaaliyeedna ha isku filnaadaan hayaanka loo socdo waa ka horta waa suurtagal maanta in 65 milyan laynoo keeno billion dollar lacag ka badan baa la geliyaa dalka hadda saaxiibada beesha caalamka ay geliyaan waa suurtagal mashriq iyo maghrib in gurmad inooga yimaado laakiin haddii aad fadhi tahay oo aanad ka caynba marka dambe waa laga daalay gurmadka u weyn ee aynu isu fidin karnaa horta waa ka aynu inagu isu fidin karno dadka kale garab bay ina siin karaan waxaan ku xusay markan Sharma Sheikh joogay waaniga abaaraha ka shaqeynay magaaladii Jowhar baa la geynaya gurmad xoogay daqiiqa iyo saliida dadkii loo geynaya beledweyn dadkii ku noolaa baa loo geynaya goob weyn meesha la yiraahdo ee webiga Juba uu badda ka galo waa jannadii adduunka weeye meeshaas ayaa la leeyahay dadkii daqiiqa loo qaybiyo way baahan yihiin ma arintaasi arin maskaxda gali karta dalal Sahara oo halka maxaa la yiraahdaa Algeria iyo Morocco iyo meelaha hadda tagto iyo Egypt naftarkeeda meelaha wax laga soo saaray wad yaabaysaa dadka Soomaaliyeed markay fursad helaan maalin dhaweed waxaan joogay waxa la yiraahdo maalinta cuntada beeralayda Soomaaliyeed aqoonta ay la timi mar dhaweed wuxuu ka hadlayay mas'uulka USAID waxaan la yiraahdo drought resistant seeds dadka Soomaaliyeed ee private sector-ka ku jira waxa ay beerayaan iyo calafka ay beerayaan iyo sisinta ay beerayaan iyo diraalka ay wadaan wada yaabaysa dawlad maxay uga baahan yihiin arinta madal walba joogo ku soo celceliya horta dadka Soomaaliyeed filmayaan dawlad sidii tii kacaanka beeraha oo dhan iyadu beerta mareed le dib u furta maxaa la yiraahdaa balcad dib u furta Itoob dib u furta dadka Soomaaliyeed waxay rabaan dawlad kabta oo ka leexata oo wadada saarta ee dawlad carqabad ku noqoto carqabad ma rabaan waxaan ku soo gunaanadayaa haddii salaamanna waan la dardaarmaya iyo saaxiibadii barnaamijkiinu haddii uu noqdo barnaamijyada stand alone-ka ah ee lagu soo karkariyo dalal shisheeye ee mandaqada la keeno oo 5 sano ka bacdi dabadeed sida roobku shuuxa qaada oo taga hadduu saas noqdo halis bay noqonaysaa laakiin barnaamijkii hadduu noqdo mid wasaaradda qorshayntu ay og tahay oo ka turjumaya flexibility hadda stabilization wax la yiraahdo ka shaqeynayna meesha la yiraahdo iyo Sooman iyo Wabxo iyo Baxdo iyo Jilib markaanu gaadhno waxaanu rabnaa markay dadkii nimanka maqaadiirta ah ee hadda ayaamahoodu ay kooban yihiin markaanu ka kicino inaanu adeegyada geyn karno
the idea of ownership هذا ownership ما هو وحي أنك implementation هذا هذا فلي يدنكو لكن حسابتي هي فهمكي هي أقونتي إلا نصدق سنة بعد إن النصرين رجل ربناه هذه اللي إحنا نصنع وإن لا تشوفه وحوين بين نجسيا عبرك أن كقاضي يا مركا هرمرك إنه سمينا ومركا إنه USAID هي UKAID أنت إنه إسكوفلنا عنه على مدينا أنت إنه قاضنا إنه ضلال كله أو تباليستن إنه جوده الصعن أسوق منه وقفك الصومالي جاه الصومالي سمة بحية economic growth كده وحقق قبتي ويرى هذا الضل كله أدون تبالك مرة ما ده أيانو حسوا قبنينا وحنكون يتسمحي economic growth كهذه النقطة وزارة قرشين تقرشيا العدد بكده شيء برنامج كان لا يرى هذا الدين عفنته extended credit facility لح بلاد سنة كبعد ودمان دونا قرشيا الواوين أو كبايا دقالها بيمن دونا وزارة حنانة حولها وزيرك ونود السعوني وزيرك كلميسك ونود السعوني قرشيا الواوين أو بقلال مليون للجلينيو أيام تقعنا يصوص على وحنقول دردارميا وزيرة هالكم فردية يكون مقنبة هذه وزارة قرشين يتأرمها بالشدة أو أرمها بالشدة وحبرشدة وحلقات ربع تيفت برنامج سنة اللي يمدن حرفضه رك فربضانو جامعة حرفضه لقى برتو هيستوى هالكن كارك عبد الكريم بهالك يجمع موضة أو بدها أي كلميس جوزير ود سوريسان كرتان وحبدن بكوجي هاي مركز إنكو إسكاشتان بيهولها الدقائق برنامج كني مركز أو إنتجريتور كنا قد قرشها قرنك أو وزارة دور كل اللي أركو العقتاس إن سي دو أو سجن أو حبون أيدت كنقول الصومالي تقول فايدستان